Maanta barnaamijkeena waxaan kaga hadli doonaa siyaasadda Shiinaha ee Afrika. Kadib dhammaadkii dagaalkii Qaboobaa waxaa soo ifbaxay nooc kale oo faragelineed oo leh qaabab iyo ujeedooyin kala duwan oo siyaasadeed. Haddaba aan eegno danaha juqraafiyeed iyo doorka cusub ee Shiinaha. Dagaalka siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee ujeedadiisu tahay sidii gacanta loogu dhigi lahaa loona kontarooli lahaa ilaha dhaqaale iyo macdanta cayriinka ah ee ay qaaraddu hodanku ku tahay. Taasi oo ay qaaraddu lahayn khibrad iyo aqoon ay kaga faa'iideysato ama ku soo saarato macdanteeda. Haddaba Shiinaha iyo Mareykanka kaliya ma ahan kuwa hardanka ugu jiro ama tartanka ugu jiro kontaroolidda ama gacan ku dhigidda qaaradda dhanka dhaqaalaha iyo dhanka siyaasadda. Haddaba wadamadaasi waxaa ka mid ah Yurub, Canada, Japan, India, Israel. Dhammaantood waxay ku tartamayaan kuna hardamayaan gacan ku dhigidda iyo maamulidda dhaqaalaha iyo siyaasadda dhammaan wadamada qaaradda. Haddaba maxay qaaraddu Afrika sidaasi dhan muhiim ugu tahay? Maxaa qaaradda Afrika sidaasi dhan loogu hardamayaa? Bal aan eegno qaaradda. Qaaraddu waxay muhiim sidaasi dhan ugu tahay aan eegno. Afrika waa 54 dal oo loo yaqaan sovereign states. Halka ay bulshada caalamku ka tahay 17% ku nooshahay Afrika. Dhoofinta saliidda waxaa lagu qiyaasaa 9.6%. Dhoofinta maarta 90%. Dhoofinta macdanta cobalt-ka loo yaqaano waa 90%. Dhoofinta dahabka caalamka half waxaa dhoofiya wadamada Afrika. 35% macdanta loo yaqaano uranium-ka. 75% macdanta loo yaqaan coltan. Iyo ha iloobin ayadana xisaabta ku darso waxay 54 cod ku leedahay golaha qaramada midoobay. Waana taas midda Afrika u yeelaysa xiisaha gaarka ah kana dhigaysa meel lagu hardamo oo aan la isugu aabayeelin. 2016 waxaa markii ugu horeysay taariikhda Afrika booqasho ku yimid ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay oo Israa'iili ah Benjamin Netanyahu, isagoo dalbaday kulan uu la qaato madaxda Afrika ee xilligaasi ku sugnayd magaalada Nairobi oo uga socday shir. Su'aasha isweydiinta mudan oo qof walba markaasi maskaxdiisa ugu soo dhacaysa ayaa waxay tahay Netanyahu muxuu kaga baahnaa wadamada Afrikaanka? Israel maxay kaga baahan tahay Afrika? Waa cod. Israel waxay u kaba gashatay oo raadinaysaa codad ay la hortagto kulamada qaramada midoobay ee looga doodayo arrinta Falastiiniyiinta dulman oo saas ay tahay deegaameynta iyo dhulballaarsiga xaq darrada ah lagu wado kana hor imaanaya qaanuunada qaramada midoobay. Ayay Israel waxay u kaba gashatay inay codad ay ku xalaashato kaga raadsato Afrika, ayadoo Afrikaankana ku qancinayso kagana dhaadhicinayso inay kaga bedelan doonto maalgelin dhaqaale ee u sameyso oo kala duwan, balse way ku hungowday Israel. Haddaba Shiinaha waa wadanka ugu saameynta badan xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha ee qaaradda Afrika. Laga soo bilaabo 2005 Shiinuhu wuxuu Afrika ku maalgashaday in ka badan $2 trilyan oo doolarka Mareykanka ah, isagoona u dhisay 6,200 oo kiiloomitir oo ah jidad tareen, kaasi oo ugu dheeryahay uguna horeeyo midka isku xira dowladaha Djibouti iyo Ethiopia. Sidoo kale Shiinuhu wuxuu dhisay xarunta midowga Afrika ee African Union ee headquarter-keeda ku taala magaalada Addis Ababa. Sidoo kale wuxuu xarun military oo weyn ku leeyahay dalka Djibouti. Shiinaha hadda waa wadanka Afrika ugu saameynta badan, taasoo lagu micneeyay gumeysi aan xoog ahayn balse dhaqaale ah.